waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka. Halkani waa Maalinle TV. qodobada aad daawad doontaan waxa qayb ka ah muran xooggan oo ka taagan arinta maxaabiista reer Somaliland ee ku xiran magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Hadaba waxaynu kula wadaagi doonaa khilaafka waqti xaadirkan u dhaxeeya madaxweyne Cabdiqaadir Cali Firdhiye iyo qaar ka mid ah isimada dhaqanka ee SSC Khaatumo. maxay ka dhigan tahay in odayaasha dhaqanka qaarkood ay doonayaan in gebi ahaanba la sii daayo maxaabiista sidoo kale la bilaabo wadahadalo toos u dhaxeeya maamulka waqooyi bari iyo Somaliland. si guud ayaan kula wadaagi doonaa macluumaad iyo xog dhameystiran oo arintaasi ku saabsan. sidoo kale markii ugu horeysay dowladda federaalka Soomaaliya waxay si toos u soo faragelinaysaa arinta maxaabiista iyadoo dalbanaysa in laba sargaal oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan maxaabiista ku xiran magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gebi ahaanba loo soo gacan geliyo. labadaas sargaal oo Soomaaliya ay doonayso iyo qorshe ay ka damacsan tahay halka ay la aadi karaan ayaan kula wadaagi doonaa. qodobada kale ee xasaasiga daawad doontaan haddii weeba idmo waxaa ka qayb noqonaya ciidamo gaaraya 5,000 oo askari oo la sheegay in laga qoray maamulada dariska la ah Somaliland sida SSC Khaatumo iyo Puntland. ayaa la sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay si toos ugu weerarto dhanka iyo Somaliland. xilli la leeyahay dowladda dalka Sacuudiga ayaa bixisay lacagihii ciidamadaasi lagu maalgelin lahaa. ciidamadan halka lagu tababaray saraakiisha hogaaminaysa iyo qorshe ay damacsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya ayaan kula wadaagi doonaa. qodobada kale ee xasaasiga daawad doontaan haddii weeba idmo waxaa ka qayb noqonaya Somaliland oo qaaday tallaabooyin military oo ka dhana maleeshiyaadka beesha ciise ee ku soo qulqulaya gobolada Awdal iyo Salal. haddaba taliye Nimcaan Gaaxnuug oo taliyaha ciidanka lugta ee Somaliland ku amray in si degdeg ah uu gebi ahaanba ciidamo u geeyo gobolada Awdal iyo Salal si looga hortago dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka beesha ciise ayaan xoga kaaga haynaa. xilli Somaliland ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la soo gabagabeeyey buuqii iyo sabqabsigii u dhaxeeyey ciise iyo Samaroon. gebi ahaan ay soo dhamaatay buuqii ka taagnaa deegaanada galbeedka Somaliland una dhaxeeyey beelaha ciise iyo Samaroon. iyana waynu kula wadaagi doonaa. qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordhaya daawad doontaan haddii weebahay idmo. balse marka hore soo dhawaada laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada qayb ka noqo saaxiibada ku xiran Maalinle TV. waxaynu ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 50,000 oo subscribe kaliya. safarkeen adiga ayaa ka dhiman ee sulka saar oo subscribe inoo saar channelka. mahadsanidin. waagaag aynu ku bilaabana barnaamijkeena. maxaabiista reer Somaliland ee ku xiran magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa arintooda waxay u muuqataa in uu hareynayo muran xooggan iyadoo ay socdaan dadaallo xooggan oo la doonayo in gebi ahaanba maxaabiistaasi lagu sii daayo. xogaha iyo macluumaadka aynu helayno waxay tilmaamayaan in maamulka SSC Khaatumo dhexdooda ay isku khilaafeen maxaabiista uu qaybta ka yahay Faysal Cabdi Bootaan iyo Jarnaal Gadhka Yagood iyo sida laga yeelayo. waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaan in Cabdiqaadir Cali Firdhiye uu doonayo in dowladda federaalka Soomaaliya uu arinta maxaabiista kala xaajoodo sidoo kalena uu gacanta u geliyo ilaa iyo laba sargaal oo horay Rasaare Xamse Cabdi Barrow u dalbaday in loo soo wareejiyo dhanka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan wadahadalada iyo sidoo kale gorgortanka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. Faysal Cabdi Bootaan iyo jarnaalka lagu magacaabo Gadhka Yagood oo ka soo kala jeeda beelaha Barjeclo iyo beesha Sacad Muuse ee uu ka dhashay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay ka mid yihiin saraakiisha ugu muhiimsan ee waqti xaadirkan gacanta ay ku hayaan dhanka iyo ciidamada SSC Khaatumo. inkastoo maxaabiistu ay yihiin kuwa tiro beel ah. waxaa Garaad Ismaaciil iyo Garaad Cali Gala dagaalka iyagu dhinacooda ay doonayaan in wadahadal lagu dhameeyo gebi ahaanba arinta maxaabiista sidoo kale la joojiyo buuqa iyo dhaqdhaqaaqyada xooggan ee waqti xaadirkan sababi kara gacanka hadalka. laakiin arintaasi waxaa si weyn u diidan sida wararku ay tilmaamayaan dhanka iyo qaar ka mid ah odayaasha ama qaar ka mid ah maamulka SSC Khaatumo mas'uuliyiintooda sida Cabdiqaadir Cali Firdhiye. arrintan ayaa waxay keenaysaa in gebi ahaanba tale ay faraha ka baxdo sidoo kale dhinacyadu ay bilaabaan isabqabsi xooggan oo dhanka gudaha ah. tani oo wax yeeli karta maxaabiista laftirkooda sida wararku ay tilmaamayaan. waxaana xogaha qaar ay sheegayaan in haddii ay sidan wax ku sii socdaan
gebi ahaanba wax kasta ay isbedeli karaan. Somaliland iyo SSC Khaatumo wadahadalo ayaa u socday, waxaana wadahadaladan hogaaminayay qaar ka mid ah culamo diinka loo yaqaanay ictisaamka, kuwaasi oo sheegay inay ka shaqeynayaan islaax bayna naas iyo qaab sulxiya in lagu sii kala daayo maxaabiista. Waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaan in waqti xaadirkan marka loo eego qaabkay wax ku socdaan, dowladda federaalka Soomaaliya ay arrintan ka dhiganaysa kaar cadaadis oo la doonayo in lagu cadaadiyo Somaliland. xogaha ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in wadahadallo u dhexeeya beelaha habar jeclo iyo sidoo kale beesha dhulbahanta ay socdaan, kuwaasi oo suuragal ay tahay in maxaabiista qaarkood lagu fasaxo ama xorriyadooda ay dib u helaan, iyadoo beelaha habar jeclo iyo sidoo kale beesha dhulbahanta ay si toos isku wadaarsanayaan maxaabiista. qodobkaas intaasi ayaan ka gudbayaa. dhinaca kale haddii aynu kusii soconno qodobada kale ee ku jira barnaamijkeena, dowladda dalka Sacuudi Arabia ayaa la sheegay in ay dhistay ciidamo gaaraya 5,000, kuwaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qoratay gobolada Sool, Sanaag ilaa Maatugdheer iyo deegaano ka tirsan Puntland. ciidamadan ayaana dhowaan tababarka loo soo gabagabeeyey iyada oo lagu tababaray gudaha magaalada Gurceel. ciidamadan ayaa la sheegay in Sacuudi Arabia uu ku bixiyey ilaa iyo $10 milyan oo doolarka Mareykanka ah, waana ciidamo xooga gaar ah oo la mid ah kooxaha calooshood shaqaystayaasha ah ee Imaaraadku uu samaystay oo kale, iyadoo la leeyahay ciidamadan waxaa looga hortagi doonaa isbeddelka geeska Afrika iyo saameynta isu tagga Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil. tani oo ka dhigan in gebi ahaanba dowladda Sacuudiga Carabiya waqti xaadirkan ay danaynayso ama ay si weyn u doonayso in gebi ahaanba saameynta Israa'iil ee dhanka Somaliland isu tagga Imaaraadka Carabta laga takhaluso. ciidankan ayaa dhowaan waxaa saraakiil Sacuudiyaan ay ku booqdeen gudaha xero ku taala degmada Gurceel, waxaana tani ay ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si toos ugu diyaar garowday dagaal ay la gasho Somaliland. ilaa iyo haatan arrintan ma fahamsano, waxaana la leeyahay Cabdiraxmaan Cirro haddii uu arrintan ku baraarugin sidoo kale uusan waxba ka qaban, xaaladdu waxay noqon kartaa mid gebi ahaanba goor xerii fandhaal ay kala dhaceen aan waxba laga qaban karin. qodobkaas intaasi ayaan kaga gudbayaa. ugu dambeynna haddii aynu eegno dhanka iyo deegaanada galbeedka Somaliland, ciidamadii ugu badnaa ayaa lagu daabulay gobolada Awdal iyo Salal xilli dhowaan Somaliland ay ku dhawaaqday in go'aan laga gaaray fadqalaladii iyo sidoo kale xiisadii u dhexeeyay beelaha Ciise iyo Samaroon, kuwaasi oo ugu yaraan sanadkii la soo dhaafay soo jiitamayay deegaanada galbeedka Somaliland, si gaar ah gobolada Awdal iyo Salal. dhowr jeer waxaa ku dagaalamay beelaha Ciise iyo Samaroon, laakiin waxaa la aaminsanaa in arrintan ay ku lug leeyihiin dowladaha Jabuuti, Soomaaliya iyo dalalka la midka ah, kuwaasi oo jabhada soo aasaasay sidoo kalena doonayay in gebi ahaanba laga takhaluso Somaliland. waxaana xogaha qaar ay tilmaamayaan in haatan arrintaasi laga hortagay Somaliland ay qaaday tallaabo military, iyadoo ciidamadii ugu badnaa ku daabushay sida wararku ay tilmaamayaan deegaano iyo sidoo kale degmooyin dhowra oo ku yaala dhinaca xadka ee galbeedka Somaliland uu la wadaago dalka Jabuuti. sidoo kale heshiis ayaa laga gaaray buuqii Samaroon iyo Ciise ka dhexeeyey, waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaan in hadda wixii ka dambeeyay u badan tahay in gobolka galbeedka Somaliland uu noqdo mid nabadgelyo ah. ciidamada taliyada macaanka Hanuug ee Somaliland ayaana halkaasi lagu daabulay, iyadoo la doonayo in gebi ahaan xasiloonida goboladaasi la ilaaliyo. gudaamintaas ayaa kusoo gabagabeynaya wararkani ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya caalamka ilaa dhamaadka. haddii aad soo gaarto waxaan ku xusuusinayaa inaad janaalka subscribe inoo sarto, qaybna aad ka noqoto saaxiibadii nagu xiran. waxaynu ku soconaa waddadii aan ku gaari lahayn 50,000 oo subscribe. halkani waa Maalinle TV. nabadgelyo.